saraakiisha sare hay'adda Alfatras oo ku sugan Soomaaliland ayaa gudagalay caawinta iyo taakuleenta dadka jilicsan ee ku dhaqan Soomaaliland oo ayna ugu horeynba ay ka bilaabeen hawlo shaqo abuur ay u sameeyeen qaar ka mid ah garabaratada ka shaqeysata suuqa Gobanimo ee magaalada Hargeysa halkaas oo ay kula kulmeen qaar ka mid ah dhalinyaradaasi garabkooda rarata oo ay u iibiyeen gaari gacanlayaal ay ku shaqeysanayaan hay'adda Alfatras anoo ku xamaasha nimankii iibiyay waan u mahadnaqaya meeshii ka sareen la wax khayr la ugu bedelo ana miskiino dhibanaa oo garbadira ayay caawiyeen laba carruur iyo xaas baan leeyahay xanayga ma soo galaan dadka islaamka waxaan u sheegaynaa ninkan walaalkeen nin dhalinyar oo xoogan waayo aad u yar wuu dhibanaay laba carruur leeyahay alaabtan saan oo culus garabku ku raranayay gaariga maba awoodin waqti igu qaadan lahayd oo dhahay gaariyan u iibinay si insha Allah taala reerkiisa shaqo abuuris yar waaye intaasi kadib gudoomiyaha hay'adda Alfatras Daahir Cali Kulmiye iyo agaasimaha guud ee hay'addaasi Cabdisalaan Muumin ayaa gaaray kaamka Istanbul oo kaamka ugu baaxadda weyn oo ay ku sugan yihiin dadka danyarta ah oo kor u dhaafaya 580 qoys oo danyar ah ayna indheeyeen xaaladda dadka danyarta ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah dadka danyarta ee kaamkaasi ku dhaqan ayaa warbixin ka siiyay gudoomiyaha iyo agaasimaha marxaladda ay ku sugan yihiin horta waxaan ku salaamayaa dhalinyaradiina isxilqaantay ee dadkaas u xilqaantay ee jirku idin damqaday waxaan idinku duceynayaa in Ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro khayrna Ilaahay idin siiyo ilaahay idin kana farash khayr qaba idin furo ilaahay garabkiina ha kalo annagana walaaladiina soo doorateen dhalinyaradiina noo timina waxaan idinku duceynaynaa 99 magac ee Ilaahay sida noogu timaadeen ee noo soo booqateen malaa'igta idin soo booqato klibkii Najiib oo noo soo duubay yani xanuun buu nagu beeray waa taa isla markii ka soo jawaabnay maadaama aan ka soo jawaabnay isla markii waxaan dhaana dadkii dhibaataysnaa maadaama Hargeysa aan tagayno waa qasab maalina hotel jiifno dadkiina u tagno oo dhibaatada aan la qaybsano hooyooyinkeena iyo abaheena yaan kugu nimid intii ay ku guda jireen indhaynta iyo booqashada kaamka danyarta waxa ay la kulmeen mid ka mid ah aabayaasha danyarta ah ee duruufaha gaarka la nool ee ku sugan kaamkaasi oo ay ka xanuunsanayaan laba ka mid ah awlaadiisa oo xanuun dhinaca dhimirka uu haleelay isaguna uu ku sugan yahay xaalad hanti yaraana waxaan halkaasi hadal ka soo jeediyay oo warbixin ka siiyay gudoomiyaha iyo agaasimaha marxaladda uu ku sugan yahay aabe Axmed Maxamed Harow ilaahay jarjar bani rabbiga wax bixiye isi ku noolaada isi iyo caafimaad isku midaan kaagi khaas anaga isku midaan oo garab istaagay wax badan ku qabanay insha Allah bidna karim ya adeer insha Allah bidna karim adeer ku toogayna inta soo filan insha Allah dartiina insha Allah insha Allah dartiina xog ururin iyo indhayn dheeraad oo ay ku sameeyeen kaamkani waxa gudoomiyaha hay'adda Alfatras Daahir Cali Kulmiye iyo agaasimaha hay'addaasi Cabdisalaan Muumin ay isla markiiba ka jawaabeen baahiyaha gaarka ay la nool yihiin dadka danyarta ee duruufaha gaarka qaba waxayna tukaamo shaqo abuur u dhigeen qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku dhaqan kaamkaasi waa kan mar kale aabo Axmed Maxamed Harow oo ka mahad celinaya shaqo abuuris ay u sameeyeen saraakiisha hay'adda Alfatras habeen saddexaad iyo maanta inta joogto bana aakhir ka sugay markaan kulay aakhiran ka sugay ma dhibanin hasa haatan nolosheedu nolol ma ahayn aad iyo aad bay nolosheedu daciif u ahayd maantana waxaan ka saab dadkan la mid ahay hadday guri tahay hadday aragti tahay hadday calool tahay hadday niyad tahay intaba marka waxaan leeyahay dadka sadaqada soo bixiyay ee islaamka ilaahay idin toban laabo kuwa aw soo dhiibteen ilaahay qabadada jannada ha mariyo rabbigu macbuudkii maaha markii ugu horeysay ee ururka gargaarka caalamiga Alfatras uu taakuleen caynkan oo kala gaarsiiyo dadka danyarta ah ku dhaqan gudaha dalka Najiib Abdiwali Abdixiis telefishinka caalamiga Universal magaalada Hargeysa.